waxay leedahay anigoo alaabtii aruurinaya maadaama aan nahay geedi waxaan arkay buugii hooyaday xasuus qorkuu ahaa. way fiican tahay xasuusta in la qoro. buugii waxay tiri Faduula ay qabatay oo waxaan damcay tiri inaan si xatooyo ama aragti aan ku fiiriyo waxa hooyaday ugu qoran meesha oo sirta ah. haddaan buu waxay tiri furay maxaa ii dhiibay waxaa ku qoranay tiri buuga baalka ugu horeeyo waxaan ahay aniga gabar aanan aqoonin waalidiinteeda dhabta ah. hooyadii ii dhashay ee hooyaday rumaad weligay indhahayga ma saarin. aniga waxaa i soo korsaday famil aan i dhalin. waxaan ogaaday 16 sano maalintan jiray dadkan aniga aan la noolahay inaysan ahayn dadkii aniga dhabta ii dhalay. waxaan jeclaan lahaa in aan hooyaday adduunka anigoo nool aan arko laabtan ay igeliso. alxamdulillahi waxdahu wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu. rabbi shrah lii sadri yassir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawli. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahayga dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada janalkayga Aamina Shiiquna. insha allah waxaan rajaynaa waqti walba idin tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu idinkaga dhigo waqti idin farxad geliya. allahuma aamiin. maanta qisadan inoo wadaa waxay tahay walaalayaal qiso ma aragtay aad iyo aad u murugo badan. hooyo ilmaheedoo kala dhumay intaasoo sanana kala maqnaa 50 sano ku dhawaad kala maqnaayay oo ma aragtay oo aad iyo aad u xanuun badan oo aan ka soo dhageystay qisada dadkii ay ku dhacday. dabcan dadkii ku dhacday ayaan ma aragtay ka soo dhageystay oo idinkaga soo turjumaya. haddii aad xiisayso qisooyinka noocaas oo murugada ma aragtay oo dadka kala dhumay oo qisooyinka runta ah waxaad joogtaa booskeedii insha allah. intaanan u gudgalin qisada waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa haddii aad ma aragtay nagu cusub tahay oo nagu cusub tihiin in aad ku soo biirtaan channelkeena oo aad ka mid noqotaan asxaabteena. dadkii horey loona joogayna way mahadsan yihiin dhammaantiinaba. waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan. intaas kadib waxaa inoo bilaabanaysa qisadeenii. waxaa laga yaabaa qisada inay dheeraato walaalayaal waxaan ka dhigayaa 2 qayb hadday ila dheeraato. haddii kalena waxaan isku dayaa inaan 1 qayb ka dhigo soo gabagabeeyo. walaalayaal qisada sida tan bay u bilaabanaysaa. 1976 waxaa ku dhalatay Warsaw caasimada dalka Poland. waxaa ku dhalatay gabar la yiraahdo Mariola. waxaa dhashay hooyo Poland ah dabcan ayadana waa Poland. waxaa dhacaysa marka Mariola in ayadoo ma aragtay markaas u dhalatay la geeyo meesha caruurta lagu haayo oo haym ah. haymkaas la geeyay sababaha loo geeyin waxaan ku ogaan doonaa filinka dhamaadkiisa insha allah. markii meesha la geeyay oo ay joogto muddo 2 sano Mariola ayaa waxaa dhacday wadanka ay sheeg in ma aragtay wadamadan gaajada Yurubta gaajada waxaa dhacday caruurta markii la geeyay meelaha haymka ah oo kaamamka ah ama cunugii la soo tuuro ama cunugii wax tarbiyay la waayo ama cunugii hooyadiis laga soo qaato. waxaa dhacda in ma aragtay la diiwaan geliyo oo caalamka ma aragtay dabcan de Yurub iyo America meelahaas in ma aragtay oo la diiwaan geliyo lagu yiraahdo qofkii u baahan inuu ilmo korsado waxaan u haynaa ilmo. marka waxa soo diiwaan geliyay family Jarmal ah ayaa soo diiwaan geliyay oo gabadhii qaatay oo codsaday. waxay imaadeen dalka Poland 1978 waxayna qaateen Mariola oo ah 2 sano jir. Mariola familkii qaatay wuxuu u noqday famil aad iyo aad u fiican. waxaana ma aragtay ishag ay siiyeen jacayl waalidnimo oo dhab ah. waxayna u sheegeen inay ayaga dhaleen. waxay xaaladda sidaas ahaataba waxay leedahay Mariola waxaan dareemayay inay mar walba wax iga maqan yihiin aniga. waxba ma aragtay aan dareemayay leedahay inaysan macnaha wax walba okay ahayn ay wax qaldan yihiin ayaan dareemayay. haddana saas ay tahay waxaan haystay waalid i jecel. waxay leedahay waxaan sidaas ahaadaba markaan jiray 16 sano waxaan ogaaday inaan aniga ahay gabar la soo korsaday oo aan la iga dhalin familkan. waxay ahayd leedahay maalinkaas maalin aad iyo aad u murugo badan maalin madow ayay ii ahayd. haddana laakiin waxaan dhahay tiri qalbigayga run baad sheegtay maxaa yeelay waxaad i dareensiinaysay mar walba in aniga ay wax iga maqan yihiin. wixii iga maqnaana maanta waa kaasa oo waxay noqotay hooyaday. waxay leedahay arinta markay meeshas maraysay
waxaan ooyo murugoodaba waan iska aamusay ilanteydan iska tirtiray waxaan aaday leedahay meesha oo ii sheeg oo caruurta macnaha degmada laga diiwaan geliyo degmadan dhayna degmada ayaan aaday leedahay waxaan ka soo qaatay dhalashadayda oo saxda ah iyo magaceygii saxda ah Mariola lama dhihin magaceeda magaca adagay leedahay walaalayaal ma qorin mana isku taxluujin hal noqdo marka waxa leedahay magaceygii runta ahaayeen soo ogaaday dhalashadaydan soo qaatay 16 jir markaan ahaa dabcan iskooley ahayd markaas waxay tiri waan aboodi karay markaas inaan iraado waalidkayga raadsana laakiin ma sameeynin sababta ayna u sameeynin waxay tahay walaalayaal waxay tiri waalidiintaydu aniga isoo korsaday ayaan waxay tiri aan ma aragtay dib u fiiriyay tiri anigoo dareenkooda ilaalinayo anigoo wanaagii ay ii sameeyeen iyo waalidnimadii iyo jacaylkii buuxi ay siiyeen dib u fiirinayo ayaa waxaan go'aansaday tiri inaanan dhaawicin oo aanan dareensiinin inaysan ayaga i dhalin waaw wallahi dadkaas oo kale way yar yihiin qof abaalkii loo galay aqoonsi waa yar yahay waxay leedahay arintii meeshii baan ku daayay iskoolay ka baxday wadanaheeda way gursatay ma sha Allah maanta waxay leedahay 5 caruur ah hadaba qisada meeshaan ka bilaawanaysaa waxay leedahay 5 caruur ah gabadheedu ugu weyn waxay jirtaa 25 sano ayada maanta waa 46 jir marka sababta hooyadeeda maanta ay yani waxay rabtaa in hooyadeeda loo raadiyo hooyadii dhabta aheedoo dhashay ay hesho laakiin qisada sidee ku bilaawanaysaa yaa raadin doono hooyadeeda waxay leedahay gabadheeda Sara ayaa la yiraahdaa gabadheeda weyn Sara waxay leedahay guriga hadda aan deganahay ayaan u soo guurnay markaan soo guuraynay waxaan galay leedahay af Ingiriis ma qaan wax lagu dhaho guriga qaybta hoose guriyahan oo maaragtay oo Yurub iyo waxay leeyihiin guriyaha hoosa loo dhisaa inta kor ku taal camalaha hoos ku taal macnaha hal guri ah oo lagu xariisto alaabaha waxay leedahay anigoo alaabtii aruurinay maadaama aan nahay geedi waxaan arkay buugii hooyaday xasuus qorku ahaa way fiican tahay xasuusta in la qoro buugii waxay tiri Faduula ay qabatay oo waxaan damcay tiri inaan si xatooyo ama aragtay aan ku fiiriyo waxa hooyaday ugu qoran meesha oo sirta ah haddaan buu waxay tiri furay maxaa ii dhiibay waxaa ku qoranay tiri buuga baalka ugu horeeyo waxaan ahay aniga gabar aanan aqoonin waalidiinteeda dhabta ah hooyadii ii dhashay ee hooyaday rumaad waligay indhahayga ma saarin aniga waxa ay soo korsaday family aan dhalin waxaan ogaaday 16 sano maalintan jiray dadkan aniga aan la noolahay inaysan ahay dadkii aniga dhabta ii dhalay waxaan jeclaan lahaa in aan hooyaday adduunka anigoo nool aan arko laabtan ay geliso yani waxa ku qoran wax muruga kaliya ah ku qoran intaas kama badinayn muhiimada intaas waay waxay leedahay gabadhii waa Sara waxay leedahay waan argagaxay waan yaabay leedahay shiba iska dhahay alaabtan iska soo aruuriyay waqti markii ay ka soo wareegatayaan hooyaday la fariistay waxaan kala hadlay buuga wixii aan ku arkay waxay leedahay markii hore kuma dhicin leedahay inaan hooyaday ku iraado hooyo xaaladda waa laana waxaan waa siray tiri waa sir oo hooyaday u qaas ah xaqna uma lihii tiri inaan aniga furo fiiriyo maadaama ay noosho xaadirto soo taagantay waxay tiri hooyo iga raali noqo waxaan maaragtay xadgudub aan sameeyay oo waxaan fiiriyay buugaagii xasuus qorka ahaa laakiin hooyo waxaan ku arkay arin aad iyo aad muruga gelisay taasoo aadan weligaana la wadaagin waxaan rabaa inaad ii sheegto sheekadaada bilow iyo dhamaad waxaan ahay gabadhaada waad igu kalsoonaan kartaa markii waxay bilowday gabadhan yani maamadii inay uga sheekayso gabadheedii Sara 25 jirka ahayd arintii xaaladaheeda kadib Sara ayaa gabar iga dheh Sara waxay sameynaysaa waxay leedahay waxay iska soo diiwaan gelinaysaa journalka oo maaragtay Aynis la dhaho oo Jarmalka qayb kamid ah qaybtiisa dadka dhumay raadiska iska soo diiwaan gelinaysaa waxay leedahay hooyadeedu waxay ka maqan tahay intaas oo sano 50 sano ku dhawaad waxaan jeclahay in hooyaday riyadeeda aan u rumeeyo oo ay hesho hooyadeeda ayadoon ogeyn hooyadeeda marka macnaha ayadoon ogeyn maamadan hooyadeeda raadin doonto gabadha sas dhayso ayeeyaa loo yahay ayeedii aan rabaa in la raadiyo hooyadeeda rabtaa inay uga farxiso ilaahay caruurteena ha ka dhigo caruurna dareemayso naga fakaraysa mar walba anagana Allah naga dhigo kuwa waalidiintooda dareemo ka fakara Allahumma aamin gabadhan sheekada marka meeshaan ay ka bilaawanaysaa kaliya waxay haysataa
dhalashadeedii iyo magaaladii ay ku dhalatay haysataa wax kale lagama hayo habarta magaceed muxuu ahaay iyo hooyada magaceeda Garajina al dhahaa haddaan si sax ugu dhawaaqay hooyada magaceeda waa la baxaa waxaa laga baxaa Jarmalka waxaa la aadayaa Poland caasimadiisa Warsaw markii meeshaas la tago waxaa ishag la bilaawayaa ishag waxay ka bilaawayaan raadiska kaniisaday ka bilaawayaan macnaha waxa way meeshii ugu wardambeysay oo ay degneed maamadan adreeskeedii hore magaalada ku yaalo konton sanad may ku taalaa maxaa isbedelay kadib kaniisada la taga dadkii oo dhan ay weydiin konton sanadee waxa way laba generation waa umalayna yaani waa laba dhalaan dhan way dadkii hore waa la dhinteen dadkii waa la kala guguray waa la weynaaday wixii markaas yaraay bas kaniisadii waa laga soo weynaa qof walba soo weydiinayaan siday u socdaan ay u wareeganayaan waxa la leeyahay waa ka xunnahay Garajina qof la dhaho anaga ma naqaano waxay sameynayaan qof sidii u weydiinayaan ay magaalada ugu wareeganayaan waxa la helayaa adreeskaas oo ay deganaan jirtay 1974 waaba inta ma aragtay ishag gabadha la dhalin 2 sano ka hor ayadoo ilmo yar ah gabadhaas markii meesha ishag markii adreeskii la helo oo la tago oo dariskii la weydiiyo waxa la leeyahay dabcan 50 sano ka hor qof meeshan ku noolaa lama ogaan karo oo mana garanayno xaafadii oo dhan wixii deganaa deegaanka ahaa lama yaqaano waxay helayaan adrees kale markay helaan ay tagaan ishag nin bay ka helayaan ninka markay guri ku garaacaan waxay leeyihiin waxaan ka soconaa telefishinka Jarmalka raali noqo waxaan raadinaynaa magacaas qof la yiraahdo wuxuu leeyahay konton sanad kuma taale bal hooyaday ayaan ma aragtay idin weydiinayaa hooyadiisana meesha ma joogin waxay joogtay meesha oo dadka waaweyn lagu xareeyo markaan filimka fiirinayo waxa ma taqaanaa guriga intuu la egay guriga degan arag hooyadiisana wuxuu geey kam subhana malik al-qudus qisadeena ma taas hooyadiisu wacay wuxuu leeyahay hooyo magacaas ma taqaanaa ishag oo naagtas يعني قف كسل رادينا وحيلاداي وحي ما أركت إيشك مرة أسوق كين دنبيسي وأقانا لكن وحي كشقين جرت مركي يقول دنبيسي ميل هبل ميل قمرق القصة ميو ماشي تجايان مركي ماشي تجان وحلو رادينا يا إيشك ديوان كالله فيرنا يا وحال لي وكحنا الليس كاسمهينو adiga siday u socdaan meelba meel u tagayaan ayaa waxay helayaan magacaas qof yaqaano magacii Garajina magacaas qof yaqaanay helayaan markay maya astaghfirullah idin soo sheeka dhaaf magacii qof walba way ka soo weynayaan oo cid u sheegto way weynayaan kadib waxay sameynayaan magaceeday qorayaan iyo ciwaanka telefishinka laga helo ayay qorayaan waxay leeyihiin waxaan raadinaynaa qofkaas waxaan raadinaynaa qofkaas fadlan qofkii arko hana la soo xiriiro nasiib wanaag markay intaasoo isbuuc qaadatay arinta ayaa waxa ma aragtay soo wici doonta qoraal u soo qorayso gabar taqaana familkan gabar yar oo familkan taqaano waxay leedahay waxa la yiraahdaa hablaayo qofta aad raadinaysaan waan aqaana ee aniga isoo waxa u raadinaysaan waa raba inaan ogaado kadib qoraal ay u qorayaan waxay leedahay maya intaan ka badan ma rabi inaan information idin siiyo akhbaar idin siiyo anigoon ogeyn waxa idinka tihiin waana arinka saxda ah hadii qof lagu weydiiyo adigoon ogaanin sababaha loo raadinayo iyo dadka raadinayo waxay yihiin adigoon iska hubsanin walaal hasiinin akhbaarta oo dhan informationka oo dhan ha ka saarin qofka farta waxa laga yaabaa qofkaas inuu yahay qofkan dilay ama reerkan duulaan ku marka waxa way zamanka hadda la joogana waaba ka sii liidataabo waxay leedahay inaan idin la kulmaan rabaa oo ma rabo inaan information intaan ka badan idin siiyo way kulmaayaan waxay leedahay maxaa ka rabtiin wuxuu leeyahay waxa laga rabaa gabaray ayada dhashay ayaa waxay joogtaa wadanka Jarmalka gabadheeda raadinayso waxay leedahay gabadha maamada aniga ma aqaano yaani meelay degan tahay warka ma laakiin gabadheeda ayaan saaxiibnahay wow gabadheedii wuxuu leeyahay arin aad iyo aad u farxad badan waay waxaan ka codsanayaa in aad nasiiso numberka gabadha ama aad noo geyso numberka gabadhay siinaysa waa la waca gurigeeda loo tagayaa waxa la leeyahay ma joogta hablaayo maya
meelahanay jirtaa waxaa loogu tagaa ayadoo joogto beerta ilmaha cunuga dhasho ku ciyaarsiinayso beerta markii loogu tago wuxuu leeyahay qofka aan ku sheega kooxdan socoto kaamiray wataan qof walbay wareysanayaan way duubayaan dabcan qofkii ka yeelo waxay leedahay maxay tahay kaamiradan ha isku nixnaa la leeyahay waxaan ka soconaa telefishinka Jarmalka marka waxay leedahay isheeg maxaa u baahan tihiin gabar waxaan raadinaynaa qoftaas magacaas Garajina qof la dhaho waxay leedahay waa hooyaday waxay leedahay waa hooyaday maxaa ka rabtiin marka wuxuu leeyahay dadkii oo telefishin ka socday gabadheeda ayaa Jarmalka ku nool oo raadinayso adiga wax ma ka taqaanaa gabadhaas inay kula dhalatay markaasay leedahay haa hooyaday mar dhow ayay arintaas ii sheegtay waxay leedahay hooyaday mar dhow ayay ii sheegtay arintaas oo ah in ay dhashay gabadheedana ay ku nooshahay ii sheeg ay macnaha oo ay dad haymka meesha ilmaha lagu kori ay geysay maamadan ma ogo gabadheeda in ay joogto meel allaali meesha adduunyada ka joogto ma ogo li'anno waxay geysay kaamay geysay waana la qaadanaya cuniga marka waxay leedahay aad iyo aad ugu faraxsanahay haddii ay walaasheena na soo raadisay ma u malaynaynin nolosha inay walaasha ay soo raadin doonto oo aan arki doono inkastoo aan waxay tiri mar walba qalbiga ku hay walaashayda inaan la kulmo dabcan maanta sawiro qof adiga kula dhashay taadi kale dadkan dad badan ma la dhashaanbo waaba 2 iyo 3 marka adoo hal qof ah oo lagugu yiri walaalaha kula dhalato adduunka meel uga nooshahay waxa way dabcan waa dareemi kartaa dareenkaaga shucuurti waxa dareemaysid qof walba ibn aadan ah marka waxay leedahay ani aadan ugu faraxsanahay waxaan hubaa hooyaday in ma aragtay ay ku farxi doonto wuxuu weydiinaa sababtay hooyada u dhiibtay gabadha ay u geysay meesha caruurta noo sheegi kartaa waxay leedahay maya hooyaday information badan ma isiinin sababtoo ah xanuun fara badan ay dareemaysay gabadha markay soo hadal qaaday marka sidaas darteed wax macluumaad kama hayo hooyo u taga hooyadii loo tagayaa gurigeeda lagu garaaca meel waxay degan tahay tuulo ay degan tahay oo waxa ugu yaalo guri weyn macna gurigan ma guri house ugu yaalo house waxa la dhahaa guriga oo ma aragtay yani hal guri waade oo kori hoos house la dhahaa kori hoos dad u ahayn xitaa laakiin guri weyn yahay house la dhihi karaa markaas laakiin waxay u badan yihiin guriyaha qaybta koowaad iyo qaybta labaad u badan yihiin guriyaha meelahan house kala dhaho meeshay ku nooshahay odageeda la nooshahay beeray leedahay ma ka qasna ma fahanteen waxay leedahay markii albaabka lagu gargaraaco maxaa tihiin wuxuu leeyahay waxaanahay qof ma aragtay raadinaya baadi adiga heblaay ma lagu dhahaa haa waxaan ka xodsanaa inaan wada fariisano akhbaar fiican oo ku wada markay meel wada fariistaan wuxuu leeyahay ma jirtaa gabar adiga aad dhashay haa oo sanadkaas aad dhashay gabar ma ka maqan tahay markaasay leedahay haa gabar oo iga maqan tahay magac kale ku sheegaysaa magacii adkaayana magacaas ma kare wuxuu leeyahay gabadhaadii magacaana loo bixi Mariola la dhahaa gabadhaadu waxay ku nooshahay wadanka Jarmalka waxaa qaatay markay 2 sano jirtay waalidiin Jarmal ah oo meesha lagu koriyay waalidiin fiican heshay soo aragtaa inay gabadhaada maanta ku soo raadiso waxay leedahay gabadheedii inaan aniga raadiyay ahayd waana hadalka saxda ah inaan aniga raadiyay ahayd oo inay ayda isoo raadiso ma ahayn laakiin kama dhiganta taas inaanan jecleen ama aanan qalbigayga aysan ku jirin gabadhayda habeen walbaan u ooynahay iyo maalin walba gabadhayda mar walbana way igubaysay xaaladda maqnaashaheeda iyo in aan gabadhayda dhiibay marka waxaan leeyahay sababta aad gabadhaada u dhiibtay maxay tahay maxaa ku kalifay goormaas kuugu dambeysay gabadhaada aragtideeda waxay ugu dambeysay hal mar aan ku booqday kaamka oo aan maaragtay socod la soo aaday oo aan gacanta qabtay ayadoo socod baranayso subhanallah wallahi yani dadkan si u fakaraan anaga sa u fakareen wax isku mid ma aha subhana malik al-qudus adoon ku qasbaneen gabadhaada inaad bixisid yani waxaan ka wadaa ayaga waxa ka go'an si walba cuniga in nolol fiican ku koro laakiin nolosha fiican qofna si uu arkaa moogtaa maxaa uga fiican cunigina hooyadiis la koro wax uga fiican male taas ay aaminsanahay aniga razaqani ilaahay dabcan qofka qof iimaan leh oo muslim ah laakiin meeshan dadkan islaam ma aha marka si kale u fakaraan sidaas darteeda waxay leedahay markaas ay ugu wardambeysay gabadhayda sababaha aan gabadhaydu u dhibayn waxay tahay anigoo aad u yaraan dhalay gabadha hooyadayna waxay igu qasbaysay
oo igu qasabtay ee mar walba idhahaysay gabadhan yarta ah halu goyni nolol uma haysid maadaama cunug yar tahay waxaan ka rabaa gabadhan inaad ma aragtay siisid dad korsado waxay tiri waxaan ka shaqeynayay guryaha ayaan ka shaqeynayay waxaan ahaa qof nadaafada guryaha ka shaqeeyo mana haysanin hunguri aniga iyo gabadhayda nagu filan ma haysanin subxaanallah sidaas darteeda si ay gabadhayda u hesho fiiriya si ay gabadhayda u hesho nolol iyo mustaqbal wanaagsan ayaan u dhiibay oo u ogolaaday gabadhayda in aan geeyo meelaha ilmaha lagu koriyo waana ka xumahay maanta ilaa ay waqtigan gabadhayda inaanan arkin oo inay ayada isoo raadisay noloshayda aniga dambigan sameeyay ma cafin dooni naftayda calaa xal waxa la leeyahay gabadhaada way ku soo raadisay wayna ku jeceshahay waxayna rajaynaysaa inay mar un ku aragto laabta ku geliso oo hooyo aad dhahdid marka walaalayaal waxaan rabaa meeshaan inaan hal shay ma aragta ka hadlo qofkan wuxuu leeyahay cunugayga waxaan u bixinayaa inuu nolol fiican ku noolaado adiga kuu sheegay waa marka su'aasha meesha taal waxay tahay yaa kuu sheegay cunugaaga haddaad dhiibtid inuu nolol fiican ku noolaan doono hadhow dadka qaadan doona se ma ogtahay waxay yihiin inay nolosha ku cadaabi doonaan inay dili doonaan inay silcin doonaan wallaahi way dhacdaa ilmo badan oo la qaatay oo dadkii qaatay ay nolosha ku cadaabeen bal kuwa dhaqamo foolxun lagula kacaa jirto maantaba ha ugu sii darnaatay waayihii hore waxay ahaan jirtay cunug in la cadaadiyo in lagu shaqeeyo kaliya ahaan jirtay laakiin maanta dhaqamo aad iyo aad u foolxun jiro oo cunuga waxyaabo aad iyo aad foolxun lagu sameynaya haddii la qaato ilaahay subxaanahu watacaala ilmaheena hanoo badbaadiyo oo hanooga badbaadiyo dadkan shartooda oo awlaadeennana waxaan ku karsano waasi risqi waasac oo xalaala ilaahana siin ku karsano ilmaheena marka waxaa waaye saan u kala fognahay ma arkaysaa alxamdulilaahi calaa nicmati alislaam dadkan waxay ku fakarayaan cunugaaga muxuu cuni doona cunugaaga iskoolku aadi doona okay way fiican tahay inaad ku fakartid laakiin waxa ayadana fiican in lagu fakaro cunugaaga intee u dambeyn doonto marka aad dhiibtid oo qof aan dhalin aasisid laajli bas inuu iskool dhigto mise ogtahay mustaqbalka hadda fiiri naagtan ilmaheedii bay dhiibtay marka ilmaheedii dhiibtay ii sheeg nolol fiican heshay kadibna nolol fiican heshay oo waa taasayo guri ay leedahay degan oo ay beer leedahay oo ilmo kala dhasho nin kursato nolosheedii ay maaragtay noqotay braawo noqotay marka haday gabadheeda iska haysan lahayd maanta soo gabadheedii noloshaas farxad la soo kulama jiri lahayn oo intaasoo sanana cadaab la'aan ma noolaan lahayn marka waxa waaye mar walba waxaan leenahay alxamdulilaahi calaa nicmati alislaam arinta kale oon rabaa inaan ka hadlaa waxay tahay hooyooyinka haddii ay dhacdo hooyo hadday dhacdo gabadhaada yarta ah lianno qisooyinka waxaan uga sheekeynayna waxay tahay mar walba waaqaca hadda jiro marxaladda laga sheekeynaya qisada ayaa lagu dabaqaa oo isbarbardhigaa lagu sameeyaa qisooyinka waxaa loo soo bandhigaa in ay kuwaana qaataan dadka hadda joogo ama qofka aysan arrinkaas ku dhicin hooyo haddii ilmahaaga gabadhaada yarta ah ay maaragtay ilmo dhasho ayadoo yar ilaahay qadaro ay duruuf ku dhacdo ha ku qasbin cunigaas yarka ah in familkiisa la siiyo ama cunigan hooyadiis inay ka fogaato inta badanna waa la sameeyaa su-aalaha hadhow imaanaya waxay tahay duruuftan waa laga baxaa fiiri duruufaha hadda waa laga baxaa laakiin hadhow su-aalaha imaan doona waxay tahay hooyaday maalinta caawinaada u baahna ima caawinin ama aabahay wuxuu idhahay ilmahaaga fogey aabahay hooyaday waxay iga fogeeyeen ilmahayga su-aalahaasoo dhanaa imaanayo cunigaaga baari ha ku ahaado ha ku jeclaado ogow laakiin noloshiisa inaysan qalbigiis ka baxaynin uusanna ilaawi doonin maalinkii aa ku qasabtay inuu ilmihiisa dariiq ugu soo tago duruuf haysa aawadeeda marka duruufaha waa laga baxaa waxaa la yiri waa la doogsanayaa la dacaroon ma dhahanoo soomaalida marka waa sidaas insha allah waxaan rajaynayaa faa'iidooyinka laba shay inaan ka sheegay inta kalena kolley idinkaa maaragtay ka sheekeyn doono waxaan rajaynayaa qisada inay idin cajabisay oo aad ka heli doontaan haddii aad ka hesho fadlan muuqaalka like saar insha allah asxaabtiinana la wadaaga muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono walaalayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh